sanadku markuu ahaa 1998 Puntland waxaa lagu aasaasay wada tashi iyo is-afgarad gobollo ku bahoobay maamul dawladeed oo iyaga u gaara. taasi waxay ka dhalatay markii muddo 8 sanadood ay Soomaalidu ku guuleysan weyday inay ku heshiiyaan dhismo dawlad qaran oo loo dhan yahay. waxaa dadka Puntland garowsadeen inaysan intaa in ka badan dawlad la'aan karin. waxayna shirweynihii dastuuriga ahaa ee 1998 ku go'aansadeen dhismaha dawladda Puntland oo ka mid noqon doonta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah kuna salaysan dawlado ka unkamay gobolada Soomaaliyeed kuna dhisan rabitaanka shacabkooda. xilligaasi shirweynihii lagu dhisay dawladda Puntland waxaa lagu ansixiyay axad qarameed waxaana bedelay dastuur golaha wakiiladu ansixiyeen sanadii 2001 si ku meel gaar ahna loogu dhaqmay hase yeeshee ay suurtagal weyday in afti dadweyne loo qaado. maadaama ay suurtagal noqon weyday in dastuurkaasi afti loo qaado waxaa la go'aansaday in lagu sii dhaqmo isla markaana dib u eegis lagu sameeyo dastuurkii hore. intaasi kadib waxaa markii ugu horeysay dib u eegis dastuurkan cusub lagu sameeyay sanadii 2007-2008 waxaana mar labaad dib loo eegay sanadii 2009 iyadoo si buuxda ay uga qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland iyo sharci yaqaano Soomaaliya ajnabi ah isugu jira. intaasi kadib waxaa dastuurkan cusub ogolaaday golaha xukuumadda dabadeedna waxaa ansixiyay golaha wakiilada Puntland. haddaba dastuurkan cusub waxaa loo dhigay inuu xeer guud ee dawladda u noqdo dadka Puntland waxaana saldhig u ah shareecada islaamka isla markaana wuxuu hagayaa dawladnimada wada shaqaynta iyo kala dambeynta hay'adaha dawliga ah ee dalka. madaxa koowaad mabaadi'da asaasiga ah ee Puntland qaybta koowaad astaamaha asaasiga qodobka koowaad ee dastuurku waxa uu qorayaa magaca iyo himilada. farqadiisa koowaad magaca dawladdu waa dawladda Puntland ee Soomaaliya. farqadiisa labaad himilada dawladda Puntland waa taabagelinta nidaam dawladeed oo ku dhisan wada tashi sinaan iyo cadaalad bulsho oo waafaqsan shareecada islaamka una horseedi karta dadkeeda nabad iyo xasilooni waarta iyo horumar dhinac walba oo ku jihaysan kor u qaadida heerka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta Puntland iyo ka qayb qaadashada in himilooyinkaasi ay gaaraan dhammaan dadka Soomaaliyeed. qodobka labaad ee dastuurka waxa uu dhigayaa sareynta sharciga. 1 sharciga ayaa ka sareeya qof kasta. 2 dhammaan hay'adaha dawladda iyo dadweynuhuba waxay u hoggaansamayaan sharciga. qodobka saddexaad ee dastuurku waxa uu dhigayaa mabaadi'da aasaasiga. 1 awoodda oo dhan ee bakasokow waxa iska leh dadweynaha waxayna u idmanayaan mas'uuliyiin ay u xil saarteen si sharciga waafaqsan. mas'uuliyiinta dalku waa adeegayaal dadweyne xilkoodana waxay u gudan karaan oo kaliya sida uu sharcigu farayo ama uu banaynayo. 2 ma jirto qof koox ama qayb ka mid ah bulshada oo awoodda dawladnimo u adeegsan karta si gaar ah. 3 hannaanka siyaasadeed dawladda Puntland waxa uu ku salaysan yahay mabaadi'da hogaamineed ee shareecada islaamka. ta isxukunka dadweynaha. ja maamul wanaagga. ha wada tashiga. kha horumarinta hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. da danta guud oo laga horumariyo tan gaarka. ra tartanka xisbiyada badan iyo xukunka oo lagu baahiyo dalka oo dhan. 4 Puntland waxay aqoonsan tahay mabaadi'da ka talinta ummadaha adduunka. 5 Puntland waxay taageeraysaa in khilaafaadka caalamiga kuwa cusub iyo kuwii horay u jirayba lagu dhameeyo wada hadal iyo hab nabadeed. qodobka afraad hannaanka xukunka. 1 dawladda Puntland waa qayb ka mid ah Soomaaliya xil ayaana ka saaran hirgelinta dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaaliga ah. 2 awoodaha dawladda Puntland ay ku wareejin doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xuquuqda ay yeelanayso Puntland. 2 awoodaha dawladda Puntland ay ku wareejin doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland waxa ay ku imaanayaan wada xaajood iyo heshiis dhexmara dawladda federaalka ah iyo dawladda Puntland taasoo lagu qeexi doono
dastuurka federaalka iyo kan dawladda Puntland. 3 inta laga dhamaystirayo dastuur federaal ah oo Puntland wax ka ansixisay kadibna afti dadweyne lagu meel mariyay, Puntland waxay lahaanaysaa awood dawlad madax bannaan. 4 dawladda Puntland waxa u bannaanaanaysaa inay dib u eegto arrimaha ku xusan faqradda 1, 2 iyo 3 ee isla qodobkan haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dawladeed oo aan ka hoosayn nidaamka federaaliga ah. Ta ay daba dheeraadaan deganaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybaha kale ee Soomaaliya. 5 mowqifka cusub ee xukuumadda Puntland ka qaadato arrimahaas waxaa cod 3/2 ku ansixinaya golaha wakiilada, kadibna waxaa loo qaadayaa afti sida ku cad qodobka 140aad faqradiisa 1 ee dastuurka. qodobka 5 ee dastuurka waxa uu ka hadlayaa dadka. 1 dadka dawladda Puntland waa dadka u dhashay Puntland iyo qof kasta oo Puntlandnimada ku helay qaab sharci ah. 2 xeer u gaar ah ayaa qeexi doona Puntlandnimada, xaqqa deganaanshiyaha iyo kasbashada meeqaanka Puntlandnimada. qodobka 6 tirakoobka. 1 dadweynaha Puntland 10kii sanaba mar ayaa la tirakoobayaa. 2 xeer gaar ah ayaa tilmaami doona waqtiga iyo habraaca tirakoobka. qodobka 7 ee dastuurka dhulka iyo soodamaha. 1 dhulka Puntland waxa uu ka kooban yahay gobolada Bari, Nugaal, Sool, Cayn, Karkaar, Mudug, Highland iyo Sanaag. 2 midnimada dhulka Puntland waa lama taabtaan, laguma xadgudbi karo, lamana kala qaybin karo. 3 Puntland waxay soo dhaweynaysaa lana xoojinaysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro dawladda Puntland. 4 dhulka Puntland waxaa ku dhan hawada sare, beriga iyo dhulka hoostiisa. jiida dhaqaalaha ee badda oo dhan 200 oo mayl badda ah oo ka bilowda halka uu ku dhammaado hirka ugu dambeeya, waxaana mas'uul ka ah dawladda. qodobka 8 ee dastuurka Puntland oo ku saabsan afka waxa uu dhigayaa afka rasmiga ah ee dawladda Puntland waa Soomaaliga iyo Carabiga. qodobka 9 ee dastuurka Puntland waxa uu ka hadlayaa diinta. 1 diinta Islaamku waa tan kaliya ee dawladda Puntland ee Soomaaliya. 2 diinta aan tan Islaamka ahayn laguma faafin karo dalka Puntland. 3 qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada waxaa saldhig u ah diinta Islaamka. 4 waxaa reeban xeer iyo dhaqan kasta oo ka hor imaanaya diinta Islaamka. qodobka 10 ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa magaalo madaxda. 1 magaalo madaxda dawladda Puntland waa magaalada Garowe, waana fadhiga dhexe ee dawladda. 2 magaalo madaxda waxa lagu dhaqayaa xeer u gaar ah. qodobka 11 ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa calanka, astaanta iyo heesta dawladda Puntland. 1 calanka dawladda Puntland waa 4 gees leh, labadii dhinac ee kasta ee iska soo horjeeda ay isla eg yihiin, kana kooban 3 midab oo kala ah. qaybta sare waa buluug furan, dhexdana ku leh xidig cad oo 5 geesla ah, madaxyo simanna leh, kana turjumaya calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qaybta dhexe waa midabka caddaanka ah ee ka turjumaya nabadda Puntland. qaybta hoose waa midab cagaaran, kana turjumaya barwaaqada iyo khayraadka Puntland. 2 astaanta dawladda Puntland waxay ka kooban tahay gaashaan ka kooban midabada calanka Puntland oo midabka caddaanka ah dhexda kaga sawiran tahay dhiil, taasi oo u taagan nabad iyo caano. gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rukumo dahabi ah. gaashaanka waxaa hareeraha ka haya 2 faras oo xamari ah, iskuna beegan, kuna taagan waran 2 af leh oo dusha sare ay ka haraynayaan 2 caleemood oo dabiici ah. waranka waxaa ku gadaaman maro xariir ah oo dahabi ah oo ay ku qoran tahay dawladda Puntland.
madaxa labaad ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa xuquuqda aasaasiga ah iyo damaanad qaadka qofka. qaybta koowaad xuquuqda shakhsiga iyo laalideeda. xubinta koowaad xuquuqda shakhsiga. qodobka 12aad sinaanta dadka. dhammaan dadku waa u siman yahay sharciga hortiisa. 1 qofna laguma takoori karo midabka, diinta, dhalashada, jinsiyadda, hantida, fikradda uu aaminsan yahay, siyaasadda, afka iyo isirka. dastuurka ayaa damaanad qaadaya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. qodobka 13aad dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa xorriyadda caqiidada. 1 qofka muslimka ahi caqiidadiisa kama noqon karo. 2 qofka aan muslimka ahayn xor ayuu u yahay caqiidadiisa, lagumana khasbi karo mid kale. qodobka 14aad ee dastuurka waxa uu dhigayaa xorriyadda fikirka. 1 qof kasta xor buu u yahay fikradiisa waana soo bandhigi karaa. faafreeb horudhacahi waa reeban yahay. 2 qofku waxa uu fikradiisa ku cabiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaaneed iyo hab kale oo sharciga iyo anshuxuba ogol yahay. qodobka 15aad ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa aasaasidda iyo ka mid noqoshada ururada bulshada. 1 qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu aasaaso, ka mid noqdo ama ka qayb qaato hawlaha ururada dhaqan-dhaqaale, bulsho, isboorti iyo cilmi haddaan sharci ka reebin. 2 aasaasidda ururada waa inay waafaqsan yihiin qaanuunka dalka iyo danaha ummadda Puntland. 3 waxaa reeban ururada leh dabeecad qabiil ama ciidan. qodobka 16aad ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa. 1 qof kasta waxa uu madax bannaan yahay in uu dalka ka maro ama ka dego meel kasta uu rabo iyo in uu dalka ka baxo kuna soo laabto goortii uu doono. 2 sharci iyo xeer hoosaadyo u gaar ah ayaa caddayn doona xadaynta xaqa dhaqdhaqaaqa. qodobka 17aad lahaanshaha hantiyeed. qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu hanti yeesho, uu maamusho, ugana faa'iideysto sida sharciga waafaqsan. sharciga ayaa qeexaya daruufaha iyo habraaca lagu xadidi karo xaqa shakhsiga ah ee la xidhiidha hantidiisa. xorriyadda wax soo saarku way bannaan tahay. waxaa shardi ah in wax soo saarayaashu ay oofiyaan shuruudaha sharci iyo maamul ee dalka u degsan. qofna lagama qaadi karo khidmad ama kharash, hantidiisana lalama wareegi karo iyadoo aan loo cuskan sababo sharciga waafaqsan. qodobka 18aad ee dastuurka waxa uu dhigayaa nolosha qofka iyo nabadgelyada jirkiisa. 1 qof kasta waxa uu xaq u leeyahay noloshiisa marka laga reebo qof lagu fuliyay xukun maxkamadeed oo kama dambaysa. 2 qof kastaahi waxa uu xaq u leeyahay nabadgelyada jirkiisa iyo sharaftiisa. 3 waxaa reeban dambiyada laga galo xaqa nolosha iyo nabadgelyada qofka sida xasuuq, jirdil, xarig iyo dil aan sharciga waafaqsanayn. qodobka 19aad ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa madax bannaanida qofka. 1 qofna madax bannaanidiisa lagama qaadi karo. xanibaad kasta oo lagu sameeyo waa inay sharciga ku caddahay. 2 addoonsiga iyo ka ganacsiga dadku way reeban yihiin. 3 madax bannaanida qofka waxaa shardi u ah inaanan ka hor imaan shareecada islaamka, xeerarka, anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale. qodobka 20aad ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa magangelinta siyaasadeed iyo isu celinta eedeysanayaasha ama dambiilayaasha. 1 qofka shisheeyaha ah ee weydiista dawladda Puntland magangeliyo siyaasadeed waa la siin karaa haddii uu buuxiyo shuruudaha u dhigan magangelinta iyadoo la tixgelinayo heshiisyada caalamiga ah ee aan ka hor imaanayn shareecada islaamka. 2 waxa reeban in muwaadin Puntland ah ama qof Soomaali ah oo Puntland ku nool loo gacan geliyo dal kaleeto. 3
puntland way u gacan gelin kartaa dalkii uu ka soo baxsaday dembiile ama eedaysano shisheeye ah haddii uu jiro heshiis isu celina oo u dhexeeya puntland iyo dalka weydiistay celintiisa ama celinteeda 4 qofna looma dhiibi karo arrimo siyaasadeed awgood qodobka 22aad ee dastuurka puntland waxa uu dhigayaa ammaanka hoyga hoyga iyo meelaha kale ee la degan yahay waxay leeyihiin xurmayntooda 2 ma bannaana baaridda basaasidda iyo gelida hoyga amar garsoore oo sababaysan la'aantiis haddii aanu gelin hoyga qof dembiile ah oo boolisku ku raad joogo ama aan isla waqtigaas faldembiyeed uusan ka dhicin hoyga dhexdiisa 3 waxaa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo deganaha amarka garsooraha inta aan lagu dhaqaaqin baarahana waxaa ka reeban ku xadgudubka sharciga qodobka 22aad xaqa saxaafadda saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madax bannaan yihiin faragelin dawladeed waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya 2 xeer gaar ah ayaa xadidaya xorriyadda saxaafadda qodobka 23aad dastuurka waxa uu qorayaa qofna lama faragelin karo waraaqihiisa boostada xiriirkiisa isgaarsiineed iyo qoraaladiisa gaarka ah marka laga reebo xaaladaha sharcigu baneeyo baaritaankooda dabagalkooda ama dhagaysigooda marka taasi lagu talaabsanayo waa inuu jiraa amar garsoore oo sababaysan qodobka 24aad dastuurka puntland waxa uu qorayaa bannaanbaxyada muwaadin kasta oo puntlander ah waxa uu xor u yahay in uu abaabulo ka qayb qaato bannaanbaxyo ku salaysan hab nabadgelyo si xeerka waafaqsan 2 bannaanbaxyada waxaa lagu joojin karaa sababo lid ku ah diinta islaamka caafimaadka anshaxa amniga iyo xasiloonida dalka qodobka 25aad ee dastuurka puntland waxa uu dhigayaa xaqa dacwadda iyo isdifaacidda qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu dacwad xeerka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodda u leh 2 qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco maxkamadda horteeda 3 qof kasta oo aan iska difaaci karin maxkamadda horteeda ama aan karin inuu qareen qabsado dawladda ayay waajib ku tahay inay u qabato qareen difaaca 4 xeer gaar ah ayaa nidaaminaya sida uu cadaalad ku helayo qofkii aan awoodin bixinta ajuurada maxkamadaha qodobka 26aad ee dastuurka puntland waxa uu qorayaa dambiga iyo ciqaabta ciqaabta dambi waxa ay ka koobnaanaysaa qofka geystay faldambiyeedka 2 qofna looma qaban karo xiri karo loomana ciqaabi karo fal markii uu galay aan dambi ku ahayn sharciga ciqaab aan maxkamadi go'aamin cidna laguma fulin karo qodobka 27aad dastuurka waxa uu qorayaa xuquuqda eedaysanaha eedaysanaha waxaa loo aqoonsan yahay dembilaawe ilaa si xeerka waafaqsan maxkamadi ugu xukunto gelid dembi 2 eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadaminimo 3 eedaysanaha laguma hayn karo meel aan xeerku bannayn 4 eedaysane kasta waa in 48 saacadood gudahood lagu horgeeyo maxkamad 5 eedaysanaha waa in maxkamadda awoodda u lihi si tifaftiran ugu akhrido uguna macnayso dembiga lagu soo oogay 6 eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inay soo booqdaan eheladiisa qareenkiisa dhaqaatiirtiisa iyo asxaabtiisa waana la damiinan karaa haddii sharcigu ogol yahay 7 eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu qareen difaaca qabsado 8 eedaysanaha laguma qasbi karo qirashada dembiga loo haysto qodobka 28aad dastuurka puntland waxa uu qorayaa xuquuqda qofka xukuman qofka ay maxkamadi xukuntay oo xiran waxa uu xaq u leeyahay ilaalinta nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadannimo
labo xukumanuhu waxa uu xaq u leeyahay in ay soo booqdaan eheladiisa qareenkiisa dhaqaatiirtiisa iyo asxaabtiisa saddex qofka maxbuuska ahi waxa uu xaq u leeyahay daryeel caafimaad cunto iyo waxbarasho afar qofka maxbuuska ah waxaa lagu dhaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee maxaabiista shan xukumanuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu racfaan ka qaato xukunkii maxkamaddu ku riday xubinta labaad laalidda xorriyadaha madaniga ah qodobka 29 ee dastuurka waxa uu dhigayaa xaaladaha degdega ah kow haddii ay dalka ka dhacaan dagaallo weeraro lagu soo qaado gadood masiibooyin dabiici ah cudurro faafa iyo xasiloonida dalka oo qalalaaso ku dhaco damaanadaha ku cad qodobada 14 16 22 23 23 iyo 24 si ku meel gaar ah ayaa loo laali karaa laalida xuquuqda ku xusan qodobka 24 laguma dabaqi karo kulamada iyo waliba barnaamijyada diimeed dhaqan iyo isboorti labo xaaladda degdega ah waxa lagu soo rogi karaa dalka oo dhan ama qayb kamid ah saddex golaha xukuumadda oo kaliya ayaa soo rogi kara xaaladda degdega afar xaaladda degdega kama ay badan karto 30 beri haddii se ay weli taagan yihiin xaaladihii khasbay golaha wakiilada oo kaliya ayaa cusboonaysiin kara muddo aan 30 beri ka badnayn shan haddii ay suulaan duruufihii kalifay xaaladda degdega ah ama golaha wakiiladu cusboonaysiin taagnaan mayso qaybta labaad xuquuqda bulshada xubinta koowaad qoyska qodobka 7aad xuquuqda qoyska qoysku waa asaaska bulshada oo ka bilowda nin iyo haweenay qaan gaaray oo si sharciga waafaqsan isku guursaday iyo carruurtooda sharciga ayaana damaanad qaadaya sugnaantiisa qodobka 31 dastuurku waxa uu qorayaa xuquuqda carruurta kow carruur waxaa loola jeedaa qof kasta oo 15 sano ka yar labo ilmuhu waxa uu xaq u leeyahay nolol magac jinsiyad korriimo waxbarasho iyo daryeel caafimaad saddex waxaa reeban shaqada wax u dhimaysa carruurta noloshooda caqiidadooda dhaqankooda korriimadooda iyo waxbarashadooda waxaa reeban in la soo rido ilmaha caloosha hooyada ku jira haddii aanay jirin xaalad adag oo hooyada nolosheeda khatar gelinaysa uuna caddeeyo dhakhtar aqoonteeda leh qodobka 32 waxbarashada kow qof kasta xaq ayuu u leeyahay inuu waxbarasho helo labo horumarinta iyo baahinta waxbarashadu waa waajib saaran dawladda saddex dawladda ayaa u xil saaran ciribtirka akhris iyo qoris la'aanta afar waxbarashada asaasiga ah ee carruurtu waa khasab dawladda ayaana u xil saaran helitaanka agabka iyo howlwadeennada waxbarashada marka ay duruufi saamaxdo dawladdu waxay kor u qaadaysaa heerka waxbarashada khasabka ah shan dawladdu waxay dhiirigelinaysaa isla markaasna tayaynaysaa waxbarashada diineed ee dugsiyada qur-aanka lix waa mas-uuliyadda dawladda diyaarinta tayaynta iyo hubinta ku dhaqanka manhaj midaysan ee heerarka dugsiyada hoose dhexe toddoba barashada iyo tarbiyadda diinta islaamku waa dariiqad asaasi ah dhammaan heerarka waxbarashada hoose dhexe iyo sare siddeed qofka qaangaarkaahi waa u madax bannaan yahay doorashadiisa waxbarasho iyo xirfadeed dawladdana waxaa waajib ku ah dhiirigelinta waxbarashada dadka waaweyn iyo tan haweenka sagaal waxaa la furan karaa dugsiyo waxbarasho kuwa xirfadeed iyo jaamacado gaar ah oo waafaqsan manhajka dawladda kuna salaysan baahida iyo siyaasadda waxbarashada dalka 10 dawladda xil ayaa ka saaran horumarinta hiddaha iyo dhaqanka 11 dawladda waxaa waajib ku ah inay taabageliso tacliinta sare 12 xeer gaar ah ayaa nidaaminaya waxbarashada gaarka ah qodobka 33 waxa uu dhigayaa caafimaadka
kow waa mas-uuliyadda dawladda in ay daryeesho caafimaadka guud ee dadweynaha ka hortag iyo daweynba gaar ahaan carruurta iyo haweenka. labo si loo fuliyo waajibaadkaas xukuumaddu waxay dejinaysaa nidaam caafimaad ee wadani ah. saddex dawladda Puntland waxay ogoshahay adeegga caafimaad ee gaarka ah, furashada rugo caafimaad iyo cusbitaallo. adeegyada gaarka ah ee caafimaadka waxaa nidaaminaya xeerka waxaana kormeeraya xukuumadda. qodobka 34 agoomaha. kow agoonta, curyaamiinta, garaadhimanka, dadka gaboobay iyo qof kasta oo aan isdaryeeli karin cid daryeeshana aanay jirin dawladda ayay waajib ku tahay inay daryeesho. labo dawladdu waa inay dhiirigelisaa samaysaana hay'ado gargaara iyo xarumo lagu xanaaneeyo dadka ku xusan farqada koowaad ee qodobkan. xeer gaar ah ayaa qeexaya dadka loo aqoonsanayo in aanay isdaryeeli karin. qodobka 35 ee dastuurka dawladda Puntland xuquuqda haweenka. kow dawladda waxaa waajib ku ah horumarinta iyo damaanadqaadka xuquuqda haweenka si waafaqsan diinta Islaamka. labo haweenku waxa ay xuquuqda kala siman yihiin ragga marka laga reebo wixii Ilaahay u kala gaar yeelay. qodobka 36 ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa xuquuqda dhalinyarada iyo horumarinta ciyaaraha. dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siinaysaa daryeelka, barbaarinta, horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga. labo dhismaha ururo dhalinyaro, daryeelka dhalinyarada iyo horumarintooda waxaa lagu qeexayaa xeer gaar ah. qodobka 37 waxa uu dhigayaa xuquuqda shaqaalaha. kow dawladdu waxay u xil saaran tahay shaqo abuurista iyo tayeynta tababarada shaqaalaha. labo waxaa reeban shaqo khasab ah haddii aan qaanuunku si kale u tilmaamin. saddex shaqaale kasta waxa uu xaq u leeyahay mushahaar u dhigma shaqada uu qabto. afar shaqaale kasta waxa uu xaq u leeyahay maalin nasasho ah toddobaadkiiba, fasax sanadeed, fasaxa ciidda ee qaanuunku jideeyay. haweenka waxaa intaas u dheer fasaxyada dhalmada, naasnuujinta. shaqaalaha fasaxa ku jira waxba iskama dhimayaan xuquuqdooda mushahaar. shan dawladdu waa inay daryeeshaa shaqaalaha jir ahaan iyo damiir ahaanba. lix shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin in ay cabashadooda ku muujiyaan bannaanbax ama shaqo joojin si xeer ka waafaqsan. ciidamada qalabka sida shaqo joojin ma samayn karaan. toddoba shaqaalaha iyo loo shaqeeyuhuba waxay xaq u leeyihiin in ay yeeshaan ururo maareeya unadooda danahooda. sideed shaqaale kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu doorto shaqada iyo loo shaqeeyaha uu doorbido. sagaal dhismaha, doorka iyo waajibaadka ururada shaqaalaha waxaa lagu qeexi doonaa xeer gaara. qodobka 38 dastuurka Puntland waxa uu qorayaa badbaadada shaqaalaha. kow dawladda ayaa dejinaysa sharciga shaqaalaha isla markaana samaynaysa hay-adaha damaanad qaadaya xaqa howlgabka shaqaalaha gaarka iyo kan dawladda. labo qof kasta oo xil u haya dawladda oo ku dhaawacma, ku jirrada ama ku naafooba shaqada waxa uu xaq u leeyahay daryeel qaynuunka waafaqsan. saddex qof kasta oo dawladda u shaqeeya oo ku geeriyooda howlgal waxaa laga bixinayaa magdhow sharciga waafaqsan. afar xukuumaddu waxay shaqaalaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba u dejinaysaa hab damaanaqaad shaqaale oo ay maalgelinayaan dawladda, loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba. qaybta 3 muwaadinimada iyo habraaca dastuurka. qodobka 39 ee dastuurka dawladda Puntland muwaadinimada. kow qof kasta oo u dhashay Puntland ama kasbaday Puntlandnimada qaab sharci ah waxaa loo aqoonsanayaa in uu yahay muwaadin Puntlander ah. labo muwaadinka Puntlanderka ah lumin maayo muwaadinimadiisa haddii uu qaato jinsiyad dal kale. qodobka 4 ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa waajibaadka muwaadinka.
kow muwaadin kasta waxaa waajib ku ah ba dhowridda diinta islaamka dastuurka iyo xeerka kale ee dalka iyo kuwa caalamiga ah ee aan ka hor imaanayn sharciga ta adkaynta midnimada ummadda iyo ilaalinta jiritaanka qarannimada Puntland ja codbixinta xilliyada doorashooyinka xa bixinta canshuuraha ku waajibay qa ka qaybgalka difaaca Puntland markii loogu yeero ama ay la soo gudboonaato labo sharciga ayaa qeexaya ciqaabta uu mutaysanayo gudasho la'aanta waajibaadka ku xusan qodobkan qodobka 41 ee dastuurka Puntland wuxuu qorayaa xuquuqda muwaadin kasta oo daadiisu gaadhay 18 sano waxa uu xaq u leeyahay ba inuu ka qayb galo hawlaha doorashooyinka iyo inuu cod bixiyo ta inuu sameeyo ama ku biiro urur ama xisbi siyaasadeed ja inuu xilliyada doorashada u tartamo xilalka dalka haddii uu shuruudaha buuxiyo qodobka 42 dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa xaqa bandhigidda cabashada kow muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu cabashadiisa qoraal ugu diro madaxweynaha baarlamaanka xukuumadda iyo madaxda kale ee dawladda labo xafiiska uu qoraalka cabashadu u socdo waa in uu ka jawaabo 30 bari gudahood qodobka 43 dastuurka waxa uu qorayaa hakinta xuquuqda siyaasadeed iyo xilqabasho ee muwaadinka xuquuqda muwaadinka waa la hakin karaa haddii ay dhacdo ba in qofka maxkamadii ku rido xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo ah noocyada lagu lumiyo xuquuqda siyaasadeed iyo xilqabasho ee ku cad xeerka ciqaabta ta in qofku yahay garaad dhiman ama maxkamadii caddayso inaanu gudan karin xilkiisa qodobka 44 ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa doorashooyinka muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha doorashada waxa uu xaq u leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo labo golaha wakiilada iyo golayaasha degmooyinka waa mansabiyada dadweynuhu tooska u dooranayaan saddex u codaynta mansabiyadaas waa inay u dhacdaa si cadaalad ah iyo xor ah oo waafaqsan nidaam sharci ah oo ay maamulayso hay'ad madax bannaan oo leh awood dastuuriya afar codbixintu waxa ay noqonaysaa mid caam ah dadku u siman yahay shakhsi ah qarsoodi ah waxaana reeban in qof lagu farageliyo doorashada meesha uu codka marinayo shan sharciga ayaa xadidaya aaga doorashooyinka ee golaha wakiilada iyo golayaasha degmooyinka tirada kuraasta uu gobol kasta ku yeelanayo golaha wakiilada iyo xubnaha golayaasha degmooyinka waxa ay ku xirnaanaysaa hadba inta uu leeyahay dadweynaha ku nool gobolkaasi ama degmada lix taariikhda ay qabsoomayso doorashadu waxa goynaya guddiga doorashada waase in aanay noqon 2 bilood ka yar ama 4 bilood ka badan dhamaadka muddada golayaasha wakiilada iyo deegaanka markaasi xilka haya 7 inta aan la guda gelin doorashooyinka waa in uu jiro sharci gaar ah oo lagu hagayo arrin kasta oo la xiriirta doorashada qodobka 45 dastuurka Puntland waxa uu qorayaa dadka aan is-sharaxi karin kow dadka ka tirsan ciidamada qalabka sida ee aan howlgabka ahayn iyo garsoorayaashu xubin kama noqon karaan xisbiyada siyaasadda isumana sharaxi karaan doorashooyinka labo howlwadeennada dawladda isma sharaxi karaan haddii aanay iska casilin xilalka ay hayaan sharciga doorashada ayaa sheegaya wakhtiga kaba dambaysta ee ay tahay inay iscasilaan haddii ay doonayaan inay tartanka doorashooyinka ka qayb galaan qodobka 46 xisbiyada siyaasadeed kow dawladda Puntland waxa laga dhaqmayaa nidaamka xisbiyada badan labo tartanka doorashadu waa mid u furan dhammaan ururada buuxiya shuruudaha looga baahan yahay saddexda urur siyaasadeed ee ugu codadka badan tartanka koobaad ee golayaasha deegaanka ayaa noqonaya saddexda xisbi siyaasadeed ee rasmiga ah afar labadii xilli doorasho kadib waxa furmaya tartanka ururada siyaasadeed shan waxa reeban xisbiyada iyo ururada leh muuqaal ciidan ama qabiil lix
qofkii magac xisbi doorasho ku gala kuna guulaysta kursi kadibna ka baxa xisbiga waxa uu luminayaa kursigii xisbiga ee ku guulaystay 7 hantida qaranka ee sida guud looga faa'iideysto sida garoomada ciyaaraha barxadaha iyo warbaahinta dawladda xisbiyadu si siman ayay uga fushan karaan ololayaashooda siyaasadda iyo hawlahooda xisbi oo kaleba goobaha kale ee dawladda iyo hantida dawladda looma adeegsan karo hawlo xisbi iyo ololayaal doorasho 8 qof kasta oo lagu eedeeyo inuu hanti qaran u isticmaalay dano xisbi maxkamad ayaa la horgeynayaa 9 xeerar iyo nidaamyo ayaa lagu maamulayaa asxaabta siyaasadeed kuwaasi oo lagu qeexayo shuruuc kala gedisan oo ay xukuumaddu soo jeediso golaha wakiiladuna ay ogolaadaan qodobka 47 ee dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa shuruudaha furashada xisbi siyaasadeed 1 xisbina kama qayb gali karo doorashooyinka haddii aanu sharciyeyn guddiga doorashada Puntland GDP ama GDP 2 si xisbi loo sharciyeeyo waxa shardi ah inuu xarumo ku leeyahay gobolada oo dhan isla markaasna leeyahay barnaamij siyaasadeed iyo xeer hoosaad hagaa hawlihiisa 3 guddiga doorashada Puntland ayaa ka baaraandegaya qoraalada xisbigu soo bandhigo waxaana la isku hortaagi karaa haddii barnaamijka ama xeer hoosaadkiisa ay khilaafsan yihiin dastuurka iyo shuruucda kale 4 sharci gaar ah oo baarlamaanku ansixiyey ayaa qeexaya dhaqangelinta qodobka 46.2 shuruudaha iyo habraacyada kale ee la xiriira sharciyeynta ururada siyaasadda 5 haddii 3 xisbi ee sharciga ah midkood burburo ama la xiro guddiga doorashada Puntland ayaa ururkii siyaasadeed ee kaalinta ku xigta galay doorashada golayaasha deegaanka ee ugu dambeeyay ugu yeeraya inuu noqdo xisbiga siyaasadeed ee kaalinta bannaanaatay buuxinaya madaxa saddexaad ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa dhaqaalaha qodobka 48aad hanaanka dhaqaalaha ee Puntland waa in dhammaan dadka Puntland ay helaan nolol u qalanta karaamadooda bini'aadantinimo iyo in qof kasta helo arrimaha lama huraanka ah si waafaqsan mabaadi'da cadaaladda bulshada qodobka 49aad ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa dhaqaalaha suuqa xorta 1 hanaanka ganacsi ee Puntland wuxuu ku salaysan yahay suuqa xorta wuxuuna dhiirigelinayaa isla markaana damaanad qaadaya maalgashiga wadaniga iyo kan ajnabigaba 2 hawlaha ganacsiga waxaa saldhig u ah tartanka xorta 3 sharciga ayaa dhiirigelinaya hagayana tartanka xorta iyo xakamaynta suuqa xirashada qodobka 50aad ee dastuurka dawladda Puntland kaalinta dhaqaalaha ee dawladda 1 dawladdu waxay dhiirigelinaysaa horumarinta dhaqaale oo joogtaysan waxayna kaashanaysaa dhaqaalaha gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado wax soo saarka kobcinta ganacsatada wax soo saarayaasha yaryar iyo iskaashatooyinku waxa ay yeelanayaan mudnaan gaar ah 2 dawladda ayaa ilaalinaysa khayraadka dalka waxa ayna damaanad qaadaysaa in cid walba si sharciga waafaqsan oo joogtaysan uga faa'iideysato 3 dawladdu waxay ilaalinaysaa awoodda waxgadashada ee dadweynaha gaar ahaan kuwa danyarta ah qodobka 51aad ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa shirkadaha wadaagga ah 1 xukuumaddu waxay samayn kartaa kana qayb gali kartaa shirkado wadaag ah oo ay saamiley ka yihiin maalgeliyaal wadani ah iyo kuwa ajnabi ah 2 madaxda shirkadaha wadaagga ah waxaa isla magacaabaya wasaaradda howlaheedu la xiriiraan iyo saamileyda gaarka ah 3 habka dhismaha maamulka iyo saami qaybsiga shirkadaha wadaagga ah waxaa qeexaya
xeer gaar ah. qodobka 52 ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa gadida hantida ummadda. 1 wareejinta hanti kasta ee dawladdu leedahay waa in la mariyo habraac sharciga waafaqsan. 2 lama iibin karo hanti ummadeed haddii aanay dawladdu dhinac ka ahayn. 3 hanti kasta oo qiimaheedu ka yar yahay $50,000 waxaa awood u leh golaha xukuumadda. wixii ka badan $50,000 waxay u baahanaysaa ogolaanshaha golaha wakiilada. 4 gadida hantida dawladda waxaa loo marayaa habka tartanka xaraashka furan. qodobka 53 ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qaramaynta hantida gaar ahaaneed. hantida qofku ku helay si xeerka waafaqsan waxaa loola wareegi karaa dan guud oo kaliya iyadoo isla markaasna la bixinayo magdhow u dhigma. 2 xeer ayaa xadaynaya hantida gaarka ah ee loola wareegi karo dan guud iyo habraaca loo marayo qaramaynteeda. qodobka 54 dastuurku waxa uu qorayaa khayraadka dabiiciga ah. 1 khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa leh dadka Puntland waxaana looga faa'iideysan karaa si waafaqsan sharciga. 2 dawladda Puntland ayaa ka mas'uul ah ilaalinta iyo ka faa'iideysiga khayraadkeeda dabiiciga ah. 3 dawladda Puntland waxay heshiis la geli kartaa shirkado wadani iyo kuwo ajnabi ah waxayna siin kartaa ruqsadda ka faa'iideynta khayraadka dabiiciga ah. 4 ruqsad kasta oo la xiriirta ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ah waxaa bixinteeda soo habeynaya golaha xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha wakiilada. 5 qaabka saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa qeexaya xeer gaar ah oo uu golaha xukuumaddu u gudbinayo golaha wakiilada si uu u ansixiyo. qodobka 55 ee dastuurka dawladdu waxa uu dhigayaa ilaalinta deegaanka. 1 dawladda iyo dadweynaha Puntland waxaa waajib ku ah ilaalinta, dhowrista iyo soo kabashada deegaanka waana in si cad loogu qeexo heshiis kasta oo la gelayo isla markaana waafaqsan xeerka ilaalinta deegaanka. 2 waxaa reeban baabi'inta kaymaha, laynta duurjoogta, xaalufinta badda, diqaynta dhulka, hawada iyo badda. cid kasta oo geysata xadgudubyo ku xusan farqadan waxay mutaysanaysaa ciqaab sharciga waafaqsan. 3 waxaa reeban dhoofinta dhuxusha, xoolaha dhadiga ah, duurjoogta iyo wax kasta oo saamayn ku yeelan kara xaalufinta deegaanka. 4 deegaan lagama samayn karo meel aan ku habboonayn dawladduna ogolaan. 5 waxaa reeban xirmaynta dhuldaaqsimeedka. 6 dawladdu waxay ilaalinaysaa isla markaana xilliyeynaysaa ugaarsiga badda. 7 xeer gaar ah ayaa nidaamin doona ilaalinta deegaanka. madaxa afraad ee dastuurku waxa uu dhigayaa qaabka dhismaha dawladda. qaybta 1 hay-adaha asaasiga ah ee dawladda. qodobka 56 hanaanka dawladda. hanaanka dawladda Puntland waa baarlamaani. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa dooranaya golaha wakiilada. qodobka 57 ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu dhigayaa qaybaha dawladda. dawladdu waxay u qaybsantaa 3 qaybood oo kala ah: ba qaybta sharci dejinta golaha wakiilada, ta qaybta fulinta golaha xukuumadda, ja qaybta garsoorka maxkamadaha. qodobka 58 dastuurku waxa uu qorayaa kala socnaanta qaybaha dawladda. 1 qayb kasta waxay u madax bannaan tahay gadashada waajibaadida, xilalka iyo awoodaha dastuurku jideeyay. qaybina qayb kale ma hoos timaado marka laga reebo arrimo gaar ah oo uu dastuurku si cad u qeexayo. 2 fulinta waajibaadka iyo xilalka qaybi leedahay qayb kale waa ay ka reeban tahay. 3 qofna xubin kama noqon karo isku mar wax ka badan hal qayb oo dawladda ka mid ah. qodobka 59 ee dastuurka dawladdu waxa uu dhigayaa wada shaqaynta qaybaha dawladda.
iskaashiga iyo wada shaqaynta saddexda qaybood ee dawladdu waa waajib dastuuri ah waxayna ku wada shaqaynayaan si sharciga waafaqsan qaybta labaad xeerka dejinta xubinta koowaad golaha wakiilada qodobka 6aad dastuurku waxa uu qorayaa golaha wakiilada kow awoodda xeer dejinta ee Puntland waxaa leh golaha wakiilada oo matala shacabka Puntland oo dhan labo inta laga helayo tiro koob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa 66 xildhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah saddex muddada golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo xildhibaanada golaha wakiilada dib ayaa loo soo dooran karaa afar golaha wakiiladu waxa uu si rasmi ah hawshiisa u bilaabayaa 30 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo qodobka 61aad ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa shuruudaha lagaga mid noqon karo golaha wakiilada waxa loo dooran karaa qof kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda ba inuu yahay muwaadin Puntland muslima guta waajibaadka diiniga ah xilkasa anshax wanaagsan miyirkiisu dhan yahay daadiisuna aanay ka yarayn 30 sano ta inaan xuquuqdiisa muwaadinimo xukun maxkamadeed lagaga laalin 5 sano ee la soo dhaafay inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta ka hor inta aan qofka la ogolaan musharaxnimadiisa guddiga doorashadu waa inuu hubiyo in musharaxu buuxiyay shuruudaha ku cad qodobkan qodobka 62aad ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu dhigayaa sababaha lagu lumin karo xubinnimada golaha wakiilada kow xubinnimada golaha wakiilada waxa lagu lumin karaa ba haddii ay xubin geeriyooto ta la soo gudboonaato xaalad xilgudasho la'aaneed oo joogto ah ja xubintu ay istiqaalad keento goluhuna ka aqbalo ha xubintu ay ka maqnaato labo kal fadhi oo caadi ah ee isku xiga sabab la'aan labo haddii xubin ka mid ah golaha wakiilada ay lumiso xubinnimadeeda waxa beddelkeeda soo galaya qofkii xubin sugaha ahaa saddex sharciga doorashada ayaa tilmaamaya habraaca loo marayo xulashada xubinta beddelaysa waana in la dhaariyaa 30 bari gudahood qodobka 63aad dastuurku waxa uu qorayaa habraaca golaha wakiilada kow golaha wakiiladu fadhiga ugu horeeya waxa uu iska dhex dooranayaa gudoomiye iyo 2 ku-xigeen oo kala ah koowaad iyo labaad labo kalfadhiga koowaad ee golaha waa in lagu meelmariyo xeer hoosaadka lagu socodsiinayo howlaha golaha saddex golahu waxa uu iska dhex dooranayaa guddi joogto ah oo ururiya fuliyana howlaha golaha si ku meel gaar ah kalfadhiyada dhexdooda afar habka codaynta golahu waa gacantaag amaba qarsoodi iyo habka codaynta ee elektarooniga ah shan fadhiyada golahu waa u furan yihiin dadweynaha hase ahaatee haddii xukuumadda ama hoggaanka golahu codsado fadhi albaabadu u xiran yihiin isla fadhiga guud ee golaha ayaa go'aan ka gaaraya lix golahu waxa uu yeelanayaa xoghaye joogto ah oo aan xubin ka ahayn golaha wakiilada waxaana magacaabaya guddoonka golaha qodobka 64aad ee dastuurka dawladdu waxa uu qorayaa awoodda golaha wakiilada golaha wakiiladu wuxuu leeyahay awoodaha iyo xilalka soo socda kow dib u eegidda ogolaanshaha diidmada wax ka bedelidda iyo burinta xeerarka Puntland labo ansixinta diidmada xaalad dagaal iyo meelmarinta heshiis nabadeed marka xukuumaddu soo jeediso saddex inuu cod kala bar iyo hal tirada xubnaha golaha ku ansixiyo heshiis amaah qaadasho ee Puntland la gasho amaahiye ajnabi ah afar inuu cod kala bar iyo hal tirada xubnaha golaha ku ansixiyo heshiisyada caalamiga ee dawladda Puntland dhinac ka tahay shan ansixinta diidmada degmo ama gobol cusub oo xukuumaddu soo jeediso lix ka doodista kormeeridda dhaliilada iyo talo ku biirinta
iyo barnaamijka waxqabadka xukuumadda. 7 hubinta iyo dabagalka meelmarinta xeerarka goluhu ansixiyey. 8 goluhu waxa uu dooranayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo lagu dooranayo si shakhsi sinaan toos amaba qarsoodi. marka koobaad iyo marka labaad waa 3 meelood 2 tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada. marka saddexaad waa hal dheeri. 9 goluhu waxa uu dooranayaa difaacaha xuquuqda aadanaha. 3 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga doorashada iyo 2 garsoore oo ka mid noqonaya maxkamadda dastuuriga ah. waxaana la marayaa habraaca doorashada ee golaha wakiilada. 10 ansixinta diidmada howlwadeennada golaha fulinta ee xasaanadsiinta u baahan. 11 ansixinta celinta barnaamijka waxqabad ee xukuumadda. 12 ansixinta celinta wax ka beddelka miisaaniyadda iyo isbeddel kasta oo lagu sameeyo madaxyadeeda. 13 oggolaanshaha diidmada xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii hore. 14 oggolaanshaha canshuuraha ay xukuumaddu ka qaadayso dadweynaha ka hor inta aanan lagu dhaqmin. 15 oggolaanshaha diidmada xaaladda degdega ah ee xukuumaddu soo saarto muddo 30 cisho gudahood ah. haddii goluhu diidu wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, hase yeeshee howlihii lagu fuliyey waxay noqonayaan ansax haddii aan maxkamadda dastuuriga ahi u aqoonsan mid dastuurka ka soo horjeeda. 16 in uu ku ansixiyo xukuumadda kala bar iyo hal tirada guud ee xubnaha golaha mid ka badan ama dhammaantood. 17 wuxuu u yeeri karaa mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda si wax looga weydiiyo howlaha loo idmaday. haddii mas'uul loo yeeray cududaar la'aan ka baaqsado inuu hortago golaha ama guddiga hoosaayadiisa, goluhu wuxuu ku wargelinayaa madaxweynaha waxaana loo qaadayaa codka kalsoonida. 18 xasaanad ka qaadista mas'uul kasta oo goluhu doorto ama meel mariyo xil u magacaabistiisa. 19 haddii mas'uul xasaanad leh la qabto isagoo dambi culus faraha kula jira waxaa la weydiisanayaa golaha wakiilada socodsiinta dacwadiisa. goluhuna wuxuu oggolaanayaa marka uu hubiyo kadib. 20 oggolaanshaha hindisayaasha xukuumadda ee la xidhiidha curinta ama baabiinta hay-adaha dawladda. 21 in uu u gudbiyo golaha xukuumadda talooyinka la xidhiidha ku dhaqanka miisaaniyadda iyo wax ka beddelidda xeerka maaliyadda kadib marka uu goluhu dhagaysto warbixinta hanti dhowrka guud. qodobka 65 ee dastuurka dawladda Puntland kalfadhiyada golaha wakiilada. 1 golaha wakiiladu waxa uu yeelanayaa 2 kalfadhi oo caadi ah sanadkiiba kuna kala aadan bilaha June iyo October. waxaana kala uu yeelan karaa kalfadhiyo aan caadi ahayn. 2 kalfadhiyada aan caadiga ahayn waxa iskugu yeeri kara gudoomiyaha golaha wakiilada, madaxweynaha ama waax hal la hoos dhigay 4 xubnaha golaha wakiilada kadib marka laga helo codsi sababaysan. qodobka 66 dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa kala diridda golaha wakiilada. 1 golaha wakiilada waxaa la kala diri karaa markii ay iscasilaan aqlabiyadda golaha wakiiladu. goluhu fariisan waayo 2 kalfadhi oo isku xiga oo caadi ah sabab la'aan. 2 markii ay dhacaan qaar ka mid ah ama dhammaantood arrimaha ku xusan farqadda 1 xarfaha ba iyo ta. madaxweynuhu wuxuu maxkamadda dastuuriga ah u gudbinayaa qoraal uu ku dalbanayo sugnaanshaha arrimaha ku xusan farqadda 1. 3 markii ay u caddaato maxkamadda dastuuriga ah gelidda farqadda 1 xarfaha ba iyo ta waxay madaxweynaha u gudbinaysaa in ay sugnaatay eedaynta lagu soo oogay golaha wakiilada. 4 madaxweynuhu marka uu helo caddaynta maxkamadda dastuuriga ah wuxuu soo saarayaa go'aanka kala dirista golaha wuxuuna ku dhawaaqayaa in gole cusub lagu soo doorto muddo 45 cisho ah gudahood. qodobka 67 dastuurka Puntland waxa uu qorayaa kalsooni kala noqoshada wasiirada. 1 golaha wakiiladu waxa uu kalsoonida kala noqon karaa wasiirada mid ka badan ama dhammaantood. 2 kalsooni kala noqoshada wasiirada waxaa soo jeedin karaa ugu yaraan 6 xildhibaan. 3
ku doodidda mooshinka kalsooni kala noqoshada wasiirada waa inay oggolaadaan ugu yaraan 3 meelood oo meel xildhibaanada golaha wakiilada 4 kalabar iyo hal tirada xubnaha golaha ayaa kalsoonida kala noqon kara wasiirada 5 haddii cod kalsooni kala noqosho uu meel maro madaxweynuhu waa inuu magacaabo beddelka golihii ama wasiirkii codka kalsoonida waayey golahu hawshiisu waa uu sii wadayaa ilaa gole cusub laga magacaabo hase yeeshee ma bilaabi karaan barnaamij cusub 6 madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu hal mar golaha wakiilada dib ugu celiyo magacaabista xubnaha golaha xukuumadda ee kalsoonida waayey 7 haddii ay xukuumaddu dhacdo madaxweynuhu wuxuu 21 beri gudaheed golaha wakiilada ku horgeynayaa xukuumad cusub si loo ansixiyo xubinta labaad habka samaynta sharciga qodobka 68 ee dastuurka dawladda Puntland curinta sharciyada golaha wakiilada waxaa mashruuc sharci horgeyn kara oo kaliya baa xubin kasta oo kamid ah golaha wakiilada ta golaha xukuumadda jaa tiro muwaadiniin ah oo aan ka yarayn 5,000 oo qof oo codbixiyayaal ah qodobka 69 nidaamka halabuurka muwaadiniinta 1 muwaadiniinta soo bandhigaysa codsi qoraal ah waa in la hubsado warqadahooda aqoonsi ama ugu yaraan magacyadooda da'dooda saxiixyadooda iyo inay caddeeyaan inay yihiin muwaadiniin Puntlandera 2 codsiga waa inuu la socdaa soo jeedinta mashruuc sharci ah iyo magacyada ugu yaraan 2 qof oo lagala soo xiriiro 3 mashruuc sharci ee ku saabsan cashuur kharashka dawladda difaaca dalka ama amniga muwaadiniintu ma soo jeedin karaan 4 golaha wakiilada waxaa la gudboon inay halabuurkaas ku qiimeeyaan kalfadhiga socda ama ka ku xiga jawaabna siiyaan codsadayaasha qodobka 7aad ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa dooda golaha ee mashaariicda sharciyada 1 golaha wakiiladu waa in uu mashruuc sharci oo kasta uga doodo qodob uguna codeeyo 2 sharci kasta oo goluhu meel mariyo waa in laga sameeyo 3 nuqul oo rasmi ah oo ay saxiixaan hoggaanka goluhu loona diro madaxweynaha 3 xeer goluhu diiday dib looguma soo celin karo isla kalfadhiga markaas socda qodobka 71 dastuurka Puntland waxa uu qorayaa saxiixa madaxweynaha iyo faafinta 1 madaxweynuhu muddo 30 beri gudahood waa inuu ku saxiixo ama ku diido xeer kasta oo golaha wakiiladu ogolaaday 2 marka madaxweynuhu saxiixo xeerka wuxuu amrayaa in faafinta rasmiga ah lagu soo saaro 3 nuqul ee asalka ah waxaana lagu kaydinayaa xafiisyada madaxtooyada golaha wakiilada iyo garyaqaanka guud 3 xeerku wuxuu dhaqan galayaa 15 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta faafinta rasmiga ah lagu soo saaro qodobka 72 ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu qorayaa diidmada qayaxan ee madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu diidmada qayaxan isku hortaago sharci uu meel mariyay golaha wakiiladu isaga oo diidmadiisa raacinaya qoraal sababaysan qodobka 73 ee dastuurka Puntland waxa uu qorayaa jebinta diidmada qayaxan 1 diidmada qayaxan ee madaxweynaha waxa golaha wakiiladu ku jebin karaan markii ay isla sharcigaas mar labaad u codeeyaan kuna meel mariyaan aqlabiyad 3 meelood oo 2 meelood 2 hoggaanka goluhu wuxuu u dirayaa madaxweynaha sharcigii oo uu la socdo qoraalkii uu ku jibiyay diidmada qayaxan 3 madaxweynuhu marka uu helo qoraalka waa inuu u saxeexaa xeerka kuna amro garyaqaanka guud in uu ku soo saaro faafinta rasmiga ah muddo 15 beri gudahooda qaybta 3aad ee dastuurka dawladda Puntland fulinta qodobka 74 hay'adaha fulinta 1 hay'adaha fulinta ee dawladda Puntland waxay ka kooban tahay madaxweyne ku-xigeenka wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo dhammaanba saraakiisha sarsare
iyo shaqaalaha awoodda tooska u hoos yimaada. 2 hay-adaha fulinta ee dawladda waxaa haga madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka haddii uu madaxweynuhu maqan yahay. qodobka 75 ee dastuurka dawladda Puntland waxa uu dhigayaa golaha xukuumadda. golaha xukuumaddu waxa ay ka kooban yihiin madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada. qodobka 76 dastuurka Puntland waxa uu qorayaa awoodaha iyo mas'uuliyadaha golaha xukuumadda. golaha xukuumaddu wuxuu leeyahay mas'uuliyadaha soo socda: dejinta, xiriirinta iyo hirgelinta xanaanka siyaasadeed ee ku saabsan amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. kala nidaaminta awoodaha hay-adda fulinta ee dawladda. xukuumaddu waxay soo rogi kartaa canshuuro cusub, waxayna isbeddello ku samayn kartaa kuwa hore u jiray iyadoo la waafajinayo baahida dalka, mar walbana laga ansixinayo golaha wakiilada. soo jeedinta iyo oggolaanshaha miisaaniyad sanadeedka dawladda oo muujinaya dakhliga xukuumadda filayso inuu soo galo iyo tafaasiisha kharashyada xukuumadda iyo hay-adaha kale oo dawliga ah ay filayaan in loo isticmaalo sanad maaliyadeedkaas oo ay ku jiraan mushaharooyinka shaqaalaha dawladda, waana in la horgeeyo golaha wakiilada 3 bilood ee sanadka ugu dambeeya gudahood. oggolaanshaha xeerka ku dhaqaaqidda xaaladda degdega ah iyadoo laga ansixinayo golaha wakiilada 30 beri gudahood. oggolaanshaha samaynta hay-ado madax bannaan iyo kuwo ay dawladdu qayb ka tahay, dabadeedna xeerkooda loo gudbiyo golaha wakiilada. magacaabidda garsoorayaasha maxkamadda sare, 2 garsoore oo maxkamadda dastuuriga ah ku biiriya xeer ilaaliyaha guud, hanti dhowrka guud iyo guddoomiyaha bangiga, kadibna la horgeeyo golaha wakiilada si uu u ansixiyo. inay ka baaraan degaan go'aanna ka gaaraan dhammaan arrimaha uu madaxweynuhu golaha u soo bandhigo. waxaa dastuurka Puntland idiin soo tabinaysa la jaanqaadaha bulshada Radio Garowe. Somali u soo baxoobay bukaanka xanaaniyo
شي شاكتو